wafdigii balladna ee hogaaminayay gudoomiyaha xusbul xaakinka kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha ee xusbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi oo weli ku guda jira kulamadii ay la qaadanayeen hay'adaha caalamiga ah iyo qaar ka mid ah safiirada dalalka dunida ugu waaweyn ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta waxa ay kulamo gooni la qaateen hay'adda qaramada midoobay ee UN-ta iyo safiirada wadamada Jarmalka iyo Mareykanka u fadhiya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. kulankan oo kamid ah kulamadaasi ayaa waxa foodo isku daray safiirada wadanka Jarmalka u fadhida dalka Kenya magaalada Nairobi Jota Gisela Farash iyo saraakiil kale oo ka tirsan safaaradaasi xagga dhinaca wafdiga Soomaaliland ka socdana ay kamid ahaayeen gudoomiye Muuse Biixi Cabdi oo isagu wafdiga hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xusbiga kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos waxa kale oo kulankaasi ku wehelinayay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Abdullaahi Cabdi Cali iyo siyaasi Cali Baashi waxa kale oo kulankaasi ku wehelinayay Sultaan Mustafa Cismaan Xirsi kulankan oo ahaa mid gudoomiyuhu ugu faahfaahiyay safiirada xaaladda guud ee dalka Soomaaliland uu maanta marayo abaaraha baasan ee saameeyay dadka xoolo dhaqatada ah ee markii ay xoolihii ay dhaqanayeen ka dhamaadeen gurmadka dadka reer Soomaaliland ay ugu jiraan sidii loo badbaadin lahaa nafaha bini'aadamka ay xaaladdu maanta marayso. abaarahaasi baasan ee ka jira dalka Soomaaliland ayuu yidhi gudoomiyuhu ayaa sababay inaanu dib u dhigno doorashooyinkii ka dhici lahaa dalka si aanu gurmad ugu fidino dadkayaga iyo maatida uu haraad kulaynayo taasoo safiiraduna dhinaceeda ay ku ammaantay Soomaaliland oo ah dal aan weli la aqoonsan iyo dadaalka ay wadaan dhinaca gurmadka abaaraha iyo ku wada noolaanshaha nabadgelyada iyo xasiloonida dhexdooda iyo ta ay kula dhaqan yihiin bay tiri mandaqada geeska Afrikaba inay tahay mid lagu faani karo taariikh wax ku oolana ugu filan Soomaaliland dhankeeda. kulankaasi ayaa ahaa mid ku soo gabagaboobay isafgarad la isla fahmay dhammaanba ujeedooyinkiisa dhinac kastaba. dhinaca kalena kulamo kuwaasi la mid ah ayaa maanta wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye Muuse Biixi Cabdi uu la yeeshay safiirka dalka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay ee UN-ta iyadoo lagaga wada hadlay mawduucyo kuwani la mid ah. kulamadaasi kale oo ahaa qaar aan loo ogolayn kamarada in laga qaado wax sawir ama muuqaal ah dhinaca nabadgelyada ee xarumahaasi dartood ayaa dhammaanba wafdigu maanta kulamadaasi gaargaarka ah ee ay la yeesheen hay'adaha iyo safiirada wadamada dunida ugu waaweyn u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku soo dhamaadeen natiijo wanaagsan iyo niyad samaan. Abdullaahi Cabdi Cali, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Nairobi.